shirkani looga tashanaya sidii loo gudbi lahaa dhibaatooyinka soo food saara muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika ayaa wuxuu soconayay muddo 3 maalin ah waxaana ka soo qayb galay intuu socday shirkani xubno matalaya jaalidaha Soomaalida ganacsato aqoon-yahan culimo u diin dhalinyaro haween oo ka kala yimid 9 gobol oo ka kooban yahay dalkani Koonfur Afrika. Shirkani la soo gabagabeeyay ayaa waxaa ka soo baxay qodobo aad muhiim ugu ah Soomaalida degan dalkani Koonfur Afrika iyadoo la doortay 3 xubnood oo si dhaqan geliya qodobadii ka soo baxay shirka soona qaban qaabiya shirweyne Soomaalida dhan ka soo qayb gasha muddo 3 bilood gudahooda. Gudoomiyaha guddigii soo qaban qaabiya shirkani Cabdullaahi Xabeeb ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay shirkan. go'aanada ka soo baxay shirweynaha Soomaalida Koonfur Afrika ee midnimo waa kuwa soo socda. Waxaan ku heshiiyey in qofkii qofkiga Soomaaliya ka sugtiga Koonfur Afrika gudaheeda in la marsiiyo sharciga waddankan aan ku noolnahay. Waxaa kaloo lagu heshiiyey in si wadajir ah dadka oo ka dhashay komunitiyaasha Soomaaliyeed iyagoo ka wada shaqaynaya tacaalum saaxiibka ay ka shaqeeyaan sidii gacanta loogu soo geli lahaa cadaaladda iyo waxa uu leeyahay uurisaga oo ka sasaga waxaa kaloo lagu heshiiyey tuuga soo badatay dhaca soo batay qofkii asagoo hubaysan isku dayay isla markaas inuu qaato hanti islaameed si sharci darro ah ayadoo difaacu nafsi oo ku jiro qofka uu isku dayay inuu hantida ka qaato haddii uu ku dhinto in dhiiggiisa la isu haysto. waxaa kaloo lagu heshiiyey in la doorto guddi u howlgalo sidii uu qabanqaabin lahaa shirweyne loogu magac daray shirweynaha Soomaalida Koonfur Afrika ee midnimo 2. guddi ayaa loo saaray kumeel gaar ah ka kooban 32 xubnood. dhinacayay fadhiyaan ay iska soo doorteen guddi 3 xubnood ah gudoomiye ku-xigeen iyo xoghayn. waxaa rabaa caawa in hortiina kula wareejiyo mas-uuliyaddii xilkii howshii aan u soo haynay haddii aan nahay midabku guddiga la doortay ee dhinacayga fadhiyo hortiina inaan kula wareejiyo ayaan diyaar u ahay isla markaana ummadda Soomaaliyeed markhaati ka noqoto ka codsanaya allana aan baryayaa isla markaana guddiga la doortay ilaahay u fududeeyo subxaanahu wa tacaala dhibaan ka soo marnay waan ognaa waxaan ka soo marnay howlaan u taalo waddadii aan soo marnay aan sugayso mid la mid ah in ilaahay u fududeeyo subxaanahu wa tacaala marka hore aan u ducayno ayaan sidoo kaleeta aan gacanta caawa hortiina ugu taago mas-uuliyadda iyo xilka nasaarnaana halkan aan ku wareejiyo isla markaana aan u yeeyo Dr. Maxamed Cabdullaahi. sidoo kale gabagabadii shirka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyihii sida kumeel gaarka ah loo doortay Dr. Maxamed Cabdullaahi kaasoo codsaday in Soomaalida ay la shaqeeyaan inta uu xilka u hayo. waxay ku wareejiyeen hawl bay wadeen hawshii ku wareejiyeen maanta annaga xaggeeda hawsha taala ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan intoodii ay qabteen in ka badan annaga ayaa ilaahay ka baryayna subxaanahu wa tacaala arrintaan guusheedana kulligood inoo wada taala ergooyinka ka kala yimid gobollada waxaan leeyahay hawshu may dhammaanin hawshu waa bilow waxaa loo baahan yahay shaqada inay ka wada qayb qaadano
sida anagu mas'uuliyadda u qaaday ilaahay idinku waa dadaalaynaa idinkana waxaa laydinka rabaa inay na adeecdaan. shirkaani ayaa shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagu qabto dalkani Koonfur Afrika waxaana la filayaa in uu wax badan ka bedelo Soomaalida degan dalkani Koonfur Afrika. Diriir Sheekh Axmed Guure, telefishinka caalamiga ee Kalsan, dalka Koonfur Afrika.